tani waa sheeko ku saabsan sida shuban biyoodku u bedelay tuuladeeda. Cayayaanka ilma qabatada ah ee shuban biyoodka ayaa webiga dhex qaada oo ku faafa. Waa cayayaan aad u yaryar laakiin aad khatar u ah. haweenku ayagoon dareemayn ayay webiga cayayaanka shuban biyoodka biyaha ku soo dhex qaadi jireen oo guriga keeni jireen. sidoo kale daqsigu lugihiisa ayuu ku soo qaadi jiray jeermiska shuban biyoodka waxa kaloo faafiya gacmaha oo aan la dhaqin. jeermiska shuban biyoodka ayaa biyahan cabayno noo dhex raaci jiray iyo sidoo kale cuntadan cunno. sidoo kale farahana wuu noo soo dhex raaci jiray. shuban biyoodku si degdeg ah ayuu dadka ugu dhacaa. subaxdii markay ahayd aabbahay aad ayuu u ildarnaa. shuban aad u badan ood roob moodid ayaa ka socday. aad ayaan u naxay. gargaar degdeg ah ayaan u raadiyey si loo caawiyo. weligay degdegan baskiil uma kaxayn. markaan kalkaalisadii caafimaadka keenay way iska garatay in waxa aabbahay haya shuban biyood yahay. waa inaan si degdeg ah u shaqaynaa si aan u badbaadinno. waxaa loo baahan yahay cabitaan caawin kara. marka u horraysa biyaha ayaan jeermiska ka dilaynaa si ay u noqdaan kuwo ilaashan. waan filtaraaraynay markaasaan haddana ilaa 1 daqiiqo qandicinnay. haddana 1 litir oo biyihii ilaashanaa ah ayaan ku darnay malqacad nuskeed oo cusbo ah iyo 60 qaado oo sonkor ah. dhadhankeedu waa dhadhanka ilmada oo kale oo cusbo badan ma laha. waxaan aad uga cabsanayay aabbahay anoo arkaya inuu igu hordhinto. laakiin wax yar kadib wuu soo xoogaystay. kalkaalisadii caafimaadku waxay ii faahfaahisay oo igu tiri ruux kastoo jeermiska shuban biyoodka liqa sida aabbaha ma wada noqdaan laakiin 2 gooraba cudurka way faafiyaan. hadda waxaa waajib igu ah inaan tuuladeyda biyaha ilaashan u qaado oon weliba baraa siday shuban biyoodka isaga ilaalin lahaayeen. waxaan arkay gabar biyo wadda markaasaan ku yidhi biyaha jeermiska ka dil adoo ku daraya dhibco koloriin ah oo haddana sug ilaa 30 daqiiqo. waxaa jiray nin rabay inuu cunto cuno gacmihiisoo wasakhaysan. waxaan ku yidhi waa inaad mar kastoo soo xaajootid gacmaha saabuun iyo biyo ilaashan isaga dhaqdaa. markaad cunto cunaysid waa inaad isku ilaalisid gacmo aan jeermis lahayn. waxaan arkay dad tuulada ka tirsan oo webiga jeermiska shuban biyoodka ku shubayey. waxaan ku yidhi waa inaad musqulo ugu yaraan 30 mitir webiga ka fog qodannaa. taasina nadaafadda tuulada ayay aad muhiim ugu tahay. waxaan arkay haweenay cunto jeermis la wadda markaasaan ku yidhi horta waa inaan gacmaha ku dhaqnaa biyo ilaashan iyo saabuun. markaa kadibna cuntada dhaqnaa oon diirka ka saarnaa. karinnaa oon mar kastana ayadoo kulul cunnaa. waana inaan ka ilaalinnaa daqsiga. warkii ayaan tuuladii wada gaarsiiyey. markaasaan ku noqday aabbahay si aan xaalkiisa u ogaado. waxaan ku farxay inuu roonaaday. tuuladannadii waxay noqotay meel caafimaad badan. biyahan waan iska miirnaa oo waannu karkarinnaa si aan jeermis la'aantooda u hubsanno. musqusha baan u adeegsannaa xaajada. markaan ka soo baxnana gacmaha ayaan biyo ilaashan iyo saabuun ku dhaqannaa. daqsiga waan ka nabadgalnay. cuntadii waannu diirnay oon dhaqnay oon karinnay. mar kasta oon ama cunto karinayno ama cunayno gacmaha ayaan dhaqannaa oo saasaan tuulada shuban biyoodka uga ilaalinnaa. warkan dadka gaarsii tuuladaaduna way noqon kartaa mid aan cudur lahayn.